waxaanu ka soo baxnay magaalada Hamburg waxaanu ku soconaa magaalada la yiraahdo Bielefeld oo ku taala bartamaha wadanka Jarmalka safarkaygu waa ilaa 3 saacadood magaaladaas Bielefeld aan ku soconana jaaliyad ballaaran oo Soomaalida ah ayaa ku dhaqan dalka Jarmalku sida dad fara badan ay ka warhayaan wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale caalamka oo dhan iyadoo aanay gawaaridu lahayn xawli loo ogol yahay oo ay ku socdaan waa niyo taagtii iyo niyo tamartii iyo niyo gaarigii inta doontaa baad ku soconaysaa jidadka waaweyn ee magaalooyinka isku xidha maxamuud baa iga warramaya gudoomiyaha jaaliyadda gobolada waqooyi ee dalka Jarmalka maxamuud markaa jidku ma kala laha miya mise meelaha qaar un baa loo goliyay inta doonto inaad ku socotid absalaanu saad ka dhawaajisay hadda wadankan Jarmalka waa wadanka kaliya Yurub hatta America saab maaha haddii lagu soo saaro calaamadda inaa free tahay waxa weeye nin iyo tabarti speedka waa limit male waa niyo gaarigi markaa niyo gaarigi haddaad baabuur sport iyo wadatid 100 kilomitir saacadii baad ku socon kartaa ma u dhiibaa cabdisalaano marka waxaad arkaysaa speedka oo free ah in calaamad ku soo baxayso oo hadda arki doono hadda waxaad arkaysaa tabeelayaashan ka muuqda halkaa it means wax kilomitir oo cadadan kuma qorna jidku waa free marka maadaama aanay waxba ku qornayn inta doontaa ku socon kartaa free baad baabuurkaagu intuu kari karo marka dhinaca bidixda ah geli mayno waayo nimanka boorshaha wata iyo Ferrariga iyo baabuurtan Mercedeska dheereeyaa ku jira laakiin marba waxa ku soo baxaya waanu arki doonaa speedka oo limit loo yeelay 120 saacadii kilomitir ila ku socotid ama 130 dabadeedna waxa arkaysaa 20 ama 30 kilomitir ama 5 kilomitir inay haddana free ka dhigeen iyaga ayaa og sababtay marna u xayirayaan marna u fasaxayaan waa wadan kaliya ay u yimaadaan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurubta kale inay baabuurta sportiga ku cayriyaan marka uu free noqdo way wada ogtahay Ingiriiskiina iyo Yurubta kale lama ogola marka waxa u soo dhoofaan inay baabuurta sportiga ku cayriyaan intay doonaan ku socdaan waxa jira dawladda Jarmalka baarlamaanku inuu isku dayay sida Yurubta kale Hollanda Ingiriiska Denmark ina la cadido waa u socon weyday shirkadahan u dooda baabuurta ama wixii ku saabsan technology-ga soo saarka baabuurtu ma ogola in dadka waxay ku leeyihiin qofku waa inuu xor yahay nin baabuur sportiga iibsaday oo Porsche ah ayaa ma qaadanayna in la xayiro hadday hawadiina u suura geliso jidkiina free yahay xorriyadda in laga qaado maaha qofka wadaniga dabcan waxaa soo dhaw suurto gelinaya maadaama jidadkii sida arkaysaan aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin dalka Jarmalkuna aanu kuma sii jirin wadamada Yurub oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay wadamada kaabayaasha dhaqaalaha ay aad iyo aad u fiican yihiin jidadku ay ka mid yihiin imika laynkan aanu marayna waxa weeye ka la ogol yahay in aliyali inta doonto aad gaadhiga ku wadid waa taanaga qudheedu dabadaan u qabanay hadda 180 kilomitir saacadii ayaanu jaraynaa mararka qaarkood maxamuud wuxuu ii sheegay marka qudhiisu uu degdegsan yahay imika annaga dalaadala ku yara leh inuu ku socdo 180 ama 200 oo kale oo kilomitir marka taasi waxay sahlaysaa in isku xidhkii wadanka xagga gaadiidku aad iyo aad u sahlanaado laakiin waxaan qiyaasayaa intaasoo dirawal oo Soomaaliya loo ogolaaday inay xawliga inta la ku socdaan inta shilaa dhici lahayd absalaano waxa weeye halkan wadankan haddaad eegtid haddaan hawadu xumayn ama jidku uusan baabuurta la siibanayn shilku aad buu ugu yariyaa sababtu waxa keenaysana waxa weeye qof walba sharcigiiba ilaalinaya
maqli maysid xataa baabuur hoon yeerinaya dadka speedka ku socda mid hoon yeerinaya ma jiro dialoog waxa ka dhaxeeya muraayadaha iska arkayaan haddii la kureeyo qof walba sharciga ilaalinayo markaad bedelaysid jidka iskama gelaysid adigoo huba baabuurka speedka soo socdo inaad geli kartid ayaad gelaysaa adoo u sii sheegaya inaad la baxday fareeshada dabadeed nabadgelyada safeka highwayga jidkani waa ka fiican yahay kan magaaladaaba shil ku badan yahay waa wax ajaa'iba waa wax cajiiba wax istaabanaya arki maysid ama wax isku dhacay وأنا هالكلمة بورلي والله